gudoomiyayaasha gobolada oo halkan shirka aanu ku casuumayo 9 gobol ah waxaan kaloo salaamayaa oo halkan ayaguna nagala soo qayb galay hay'adda Bunsa oo ah dalada guud oo gacan naga siisay waxaan howlaha shaqo aan wadno waxaan kaloo salaamayaa hay'adda Bayaan oo ay ku midaysan yihiin dhalinyaradu oo aanu ku casuumnay 9 gobol oo Puntland dhalinyaradii 9 gobol gobolada u kala joogtay gudoomiyayaasha gobolada waxaan kaloo halkan ka salaamaynaa gudoomiyihii xilka aniga iiga horeeyay maxaa xasan bare oo goobta isaguna maanta noogu casuuman waxaan si gaar ah u salaamayaa 5 urur siyaasadeed oo runtii maanta cidda halkan aanu ugu muhiimsan tahay shirkaan aanu qabanay una kulminay daneeyayaasha ama ka qaybgalayaasha hawshatan doorka ay ka qaadan lahaayeen ay muhiim u noo tahay waxaan salaamayaa hay'adda BDRC oo ay ahayd safka hore inaan geliyo oo howlkan quruxda badan nagu casuumtay mar walbana nagu soo dhaweysa waxaan salaamayaa keer oo mashruuca barnaamijkan maanta gacan weyn naga siisay markii koowaad inkastoo ay tahay waxaanu rajaynaynaa gacmo badan oo kala wada shaqaynaya aanu kasii helo waan ku mahadsan yihiin waxaan halka salaan kale u sii marinayaa hay'adda Zevro oo iyadu runtii haddii aysan gacanna siin aan waxba noo qabsooneen dhinacyo badanna naga saaciday aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin maxay ahayto dhammaan inta golaha fadhida marka koowaad waxaan rabaa halka inaan idinku soo gudbiyo inta aanan gelin hadafka shirka 2 qodob oo naga dib dhacay oo aanu rabnay casuumaadda aanu idinku casuumnay inaanu ku soo bandhigno qodobka koowaad wuxuu ahaa runtii hay'addu salkii ay ku fariisan lahayd inaanu helay waxqabadka maanta koowaad uu yahay waxaanu ku guulaysanay inaanu helay gurigii hay'addu ay ku shaqayn lahayd oo degi lahayd oo aan kira ahayn oo lahaansho ah oo ah gurigaan dhabarkeena qorxo dhacayna ka xigo guddiga kooni gurigaas baan la siiyay waana guul runtii waxaanu noqonaysaa intaan iyo in ka badan baa anagoo ku casuumayna inaanu marka dambe shirka xiga biidnillaahi kariim ku soo bandhigno waxaan kaloo wadnaa oo qabyo naga noqday oo noo qabsoomi waayay strategic plan-kii aanu wadnay oo ah salkii baasho ay ku fariisan lahayd cid walina doorka ay ku leedahay uu ka soo geli lahaydna oo halkaa ka muuqan lahaa intaa haddaan ka gudbo aan u soo noqdo doorka ka guddi ahaan tibek aanu u idmanahay baan rabaa markaa inaan sharaxo anagu waxaanu nahay hay'ad ku meel gaara shuruuc badan baa qeexaysa waxaanu leenahay teeram yar shaqadayadu tahay teeramkaas yar waxaana looga baahan yahay 3 arrimood inaanu samayno waxaan u malaynayaa waa shirkii tobnaad aanu qabanayno maalin walbana waa sharaxayn haddana maaqaan lama calfanayno barbar bay dadka ka maraysay maanta waxaan rabaa in la calfado shirkaasi maanta waxaan ku sharaxaynaa mar waa waxqabadkayagii marka labaadna waxa weeye waxa aanu u idmanahay iyo doorka aanu leenahay baan sharaxaynaa waa 2 qodob oo ku saabsan yahay shirku markaan salaanta iyo maxay ahayto ka soo noqdo inta noo qabsoontay annagu waxaanu u idmanahay marka koowaad inaanu diiwaan gelinno ururada siyaasadda danaynaya isdiiwaan gelintoodii inaanu u diyaarino fududayno inaanu wacyigelin samayno dadku waxa kan in loo bislaado la fahmo waqti bay u baahan tahay qaar baa waxayna dhaxaan goormaad xisbiyadii noo furaysaa halkaasay baashu joogtaa marka si su'aalahaas iyo
waxa dhabta ah oo loo baahan yahay la isla fahmo anagu waxa loo baahan yahay in la gaarsiiyo waxa kan oo la isla fahmo gobol Mintuulo waa wadna shirar badan waan qabanay waxaanu leenahay kuwa badan oo kan ugu horeeyo hadda wixii hore marka laga yimaado oo gobollo badan oo maxay deegaanada Puntland aanu ku qabanayno wacyigelintaas marka laga yimaado waxaanu leenahay oo teeramkayagu ka eegyahay ururadaasi waxay u tartamayaan xisbi cidii ku guuleysata ayaa maxay ahayto oo saddexda xisbi qaran oo dawladda hoose yimaada halkaas aanu joognaa teeramkayaguna intaas uu ku eegyahay waxa sharaxaya dastuurka Puntland baa sharaxaya iyo xeerarkiisa waxay wada sharaxayaan annaga iyo guddiga naga dambeeya annagu inta markaan ku eegnahay guddi baa jiraya 9 ah wuxuu ka kala imanayaa baarlamaanka saddexda xisbi samaysma oo mid halka ka imanayo mid hal qof ka imanayo madaxtooyada oo saddex ka imanayso 9 qof baa na bedelaya ku xigaya oo halka ka ambaqaadayo oo noqonaya annagu ku meel gaar baanu nahay guddiga doorashooyinka rasmiga ah 6 sanana way jiritaankooda guddiga la rabo hawsha baaxadda weyn inay qabtaan waa taa isla markaa waxa ka micno iyo miisaan weyn annaga maanta shaqada aanu hayno iyo guddiga kan taanu asaasanay baa ka micno weyn waayo taanu hayna oo dawladihii hoose isdiiwaangelintii fitin la galo xisbi siyaasi oo soo baxa hadaan la helin taa kale lama gaarayo walgeed ka raamaysa marka si ay tani taa dambe inoogu taabakasho waa in tan ay socotaa tan isla la fahmnaa arintaasi waa sidaas dastuurka qodobada qeexaya waanu wadaagnaa in fact waxaanu ku leenahay 5 page marka la isku celiyo 2 bog ay noqdaan 10 page bay isku noqonayaan dastuur ahaan waxa qeexaya wada akhrisan kartaan buugi dastuurka waa yaala waan haynaa waxa qeexaya qodobka 112 qodobka 113 qodobka 114 qodobka 115 iyo xeer lambar 9 oo soo baxay maxay ahayd 2015 intaas ah sharciga aanu ku shaqeynayna waa kaas iyo xeerarkaas waxaanu ugu nimi miiska annagu sharciga isagoo samaysan waxa laga yaabaa wax yar inaanu ka bedelay oo aanu ugu danaynaynay xoogaa culays haystay ururada siyaasiga ah oo kale oo ahayd khidmadda laga doonayo inay noqoto wax la difan si ay u hagaagto oo meesha 15 ka ahayd markii xisbi siyaasi uu gudbo aynu ka dhignay 7 meeshii isdiiwaangelintu ay ahayd 7 laga dhigay maxay ahayd 3500 waxyaalaha aanu bedbedelay waa waxaas yar oo iska xeerarka ah laakiin dastuurka miiskaanu ugu nimi kaanu ku shaqaynaynaa waa taas waxaan rabaa warkayga anoo koobaya halkan inaan uga mahadceliyo 5 urur siyaasi oo ku meel gaarka waxaa halkan noo yaalo oo aan u haynaa warqado aqoonsi ah warqadahaas aqoonsiga ahi waxaanu u bixinaynaa inay yihiin ururo ku meel gaar ah oo ka diiwaan gashan xafiiska maxay ahayd ama xarunta dhexe ee dawladda Puntland isligeedu yahay Garowe Tibek warqadahaas aqoonsiga ay leeyihiin cabashooyin baan soo gaaray waxyaalaha aanu u casinay ay kow ka tahay wasaaradaha nala ah hawshatan nala wadaaga oo ay ka mid yihiin waa maqan yahay wasiirka amniga faafinta wasiirka arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda dastuurka maxay tahay waxbarashadii iyada maanan casulin oo anaga hawl kala yeelanay amniga iyadoo wax runtii koowaad ee amniga ahayd hadaan amni jiraan waxba qabsoon kareen waxaan isu waafajinaynay cabashaana soo gaadhay ah meelo badan in laga yiri maxaa ka wada xafiis kale oo siyaasadeed oo aan garanayn ama baalkiiba furaysaan gudoomiyayaasha gobolada ayaga waxay madaxweynayaasha gobolada waxaan codsanaynaa ururadaas inay la shaqeeyaan kulli wasaaradda way hadli doontaa doorkooda way oranaysaa ururada dhalinyarada oo 9 gobol ahna waxaan codsanaynaa oo soo jeedinaynaa iyaguna inay ka qayb qaataan khadro
oo iyaduna shirka ku casbinayd oo ah gudoomiyaha haweenka inkastoo inaga soo daahday waana salaamayna doorkeeda inay ka qaadatana waan filaynaa wasaaradaha waxaan codsanaynaa ayaguna kollay wayna hadli doonaan wasiiraduna wareega dambeyn doonaan ayaguna inay doorkooda ka qaataan nuxurku waxa uu yahay shaqa inoo taalla adag shaqada tanna isku tuurtuur iyo madmadow uma baahna waa wax cad waana wax sharcigu qeexayo inta ay u taallo la rabaa inay taabageliyaan meel maryaanna inteennaan weeye waxaanu idinku yeedhay arrintaas inaan isla qaadanno waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celiyo shanta urur siyaasi oo ku meel gaarka ah oo ku dhiiraday in ay gaarsiiyaan dadkooda maxay hayto asxaabta inay gaarsiiyaan ku dhiiraday aad iyo aad baan ugu mahad celinay berigii waxaan ugu soo gaaray dadku waa yaryaryahay aniga maxaa xasan barre iyo marka nala ka reebo dhallinyara u badantihiin iyo xaaji maxamed xaaji aadan isagoo dowladska calaa ayi xaal waxaan haynay in la yidhi baarlamaankii soomaaliya ugu horreeyey lacag baa la siiyey iyadoo la baryayo waxaa la yidhi naga aqbala waana idiin ducaynaynaa arrintaas baarlamaan u qaata oo taga niman dhibi ku dhacday oo guryahoodii iyo deegaanadoodii laga diray oo la lugooyey bay nimankaasi ku tageen doorashadii haddeerena dhaaftay heer federaal ah waxaynu soo gaaray in la yidhaahdo ninka xildhibaanka doonaya $1 milyan buu ku doonaya weliba gobollada qaarkood innaga inama soo gaarin laakiin gobollada qaarkood way ka dhacday intusalahaas dheer waxaan u soo qaatay asxaabta iyo ka mid noqoshadooduna inay taasoo kale shalayna ahayd berrina noqonayso in sidaas idinku baxyo gaartaanna waan rajaynaynaa waan idiin mahad celinayaa dhammaantiin